السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. إله وحبك قرمنا إله نوقره. هل كان وحاك جرة كيف عاقل عوالم محمد إبراهيم ومعرتك كجرة قربت ضر إلهي النبض إيا شرف كسيي أدير صدو لبك المدود هولها الصعداء تطبعد إنك بدن هولها الصعداء هايه واندوهي أدير واندوهي أدي عن إلى بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمد الصومالية ملك استوي جوغلنا وسلامينا دمان إلهي وحا ويديسانينا إنو إلهي مصيبوين كالسعوداء يا آفات كالسعوداء إلهي نقبت باديو إلهي وحا خير كلنا إنو وافجيو أمدنا إلهي في المدى كدبيو وحان لبك المدود عن أمد أو نستيحان ودرينا أمد walaalaha ee Soomaaliyeed ee Somalilanderka ee Ilaahay meel ku wada abuuray oo sina aan ku kala tagayn iyagoo ah dad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu rixim ka dhigay meel ka soo wada beermay ilaa cimrigoodna ku wada noolaa maanta xaaladda dhex socota ay tahay xaalad masiibo oo niman sharwadayaal ah oo xukuumad ku magacaabani ay hadda dhexdigayaan iyadoo oon anigu maanta aan oranaynin waa xukuumad waxa loo yaqaanaa dadka islaaxu bayna naas ee ulul amriga ah ee caadilka ah ee ummadda u dhaartay ee kitaab quraana ku dhaartay inuu ummadda maslaxa dhex dhigo waxa maanta wax laga yaabo ah oo laga fajaca oo wax nin mas'uul ah amba madaxweyne ka soo baxa marnaba aynan ahayna caalamkan aan lagu arag warbixintii ka soo baxday madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirro iyo wasiiradiisa ugaaska beesha Ciise ugu dhawaaqay xafladda xeer Ciise ku qabtay Saylac iyadoo oo marka reeraha munaasabadaha dhiganaya ee Somaliland xaq ay u leeyihiin inay dawladdu ay ka wargeliyaan nidaamkii iyo processkii loo maray laga wargeliyay xukuumadda loo tagay la xaq siiyay intaas oo maalmood la joogay uu madaxweynuhu fasaxay muddadiina u qabtay waxa dhacday in muddooyinkii lagu beegnaa oo la isku diyaarinayay qabanqaabadii in uu wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdida uu watay wasiirada ka kooban ay tagaan degmada Saylac oo xeerku ka dhacay xafladdu iyadoo oo ay ku sii sugnaayeen beelaha Somaliland daga beel ka mid ah Sabaroona oo iyaduna in badan baraha bulshada ka qaylinaysa oo xeerka Ciise ka soo horjeeday oo laga daabulayo Boorama iyadoo oo afxumada iyo aflagaadooyinka socday dadku ay u jeedeen aan loo jawaabaynin oo laga aamusnaa oo qofka su'aal afxumi ka yimaada in loo jawaabo ayna munaasib ahayn waxa dhacday in wasiir dhan iyo madaxweyne dhan oo wafdigiisii u diray ay qaadato beel ku dhacaysa cadaalad darro iyo dulmi oo dad walaalahooda sharci darro ugu xadgudbaya ilaahay arlada ummadda u wada dhigay meel laguma kala maqan iyagoo loo yahay inay Saylac ka ganacsadaan oo degan yihiin haddana lahaashaha iyo deegaanka isagoon qofna uuna dhulka qaadanaynin laakiin cidda ku suntan waa loo yahay wax maanta shikiyo oo ka jiraana una jirin maantana waxa la isku haystaa Saylac aynan ahayn siyaasad ay tahay siyaasaddaas oo looga faa'iidayo in iyaga madaxa la isku geliyo oo marka horeba dabada laga riixay anigu waxa aan dareensanahay oo xukuumaddu ay wado laakiin uu shacabku ka daahan yahay oo jirin baa jira oo halka dabadiisa ka muuqda taasi waxay tahay xukuumaddu waxa meesha ku jira waxa weeye in dawladii amxaarku ay meesha ku eedan tahay Cirra waa ogeydeen dhowr iyo 10 maalmood buu imaaraadka ku maqnaa
imaaraadku waa cadowga Soomaaliyeed oo ogtiin imaaraadku waa cadowga Soomaaliyeed waa ogtiin kolkuu ka yimid Ethiopia u tagay dalku sidaa uga soo degay isagoo nastan wuxuu tagay Ethiopia ka hor waxa socday weerarka oo yadaabulka buuga xeer ciise lagu hor joogsanayo oo boorma laga daabulay waxa joogay madaxweyne ku-xigeenka isaga ayaa daabulka dirayay kama uu hadlay markuu yimid cirrana madaxa ayuu qarsaday oo god buu ku dhacay cirra ayuu daabulka u dhiibay cirra markuu ka yimid Ethiopia ka soo laamay dawladda loo tagay isagoo xeerkii waan ogolahay leh oo afka islaamka ku hadlay waxa uga xaq badnayd markii ay gudida u tagtay ugaasku inuu yiraahdo war maanta hawlaa igu furan dee muddo kale ba la ii dhigo warintiisa hadda halka ku baajiyo ma ilaahay baa qashifay ilaahay baa tusay dadka wuxuu yahay maanta uu fasaxay ballan buu qaaday maanta iyadoo muddadii ku soo eedan tahayna wuxuu diray inay beeshii iyo dawladdiisiba iska rab cararto halkiina iyagoo dhayo uu yiraahdo waxaan qaatay beesha sabaroon hadalkeegi isagoo waliba lahaa waxaan ku raali gelinay anoo beel ku raali gelinay anoo cid kale uga duray laakiin waxa ka soo baxday oo dadku hadday aqligoogu shaqaynayo oo miyir qabaan meesha ku jirtay salaadii jimcaha ee maalintii dhaweyd khudbada uu dadka ka horjeediyay wuxuu yiri tayla maanta ayaan dhisayna taldhigii baa bilood gudahood ku dhisayna kalluumaysigii baan dhisayna khayraadkii baan dhisayna waxaad kaloo dadka reer Saylacow dad wanaagsan baa tihiin waxaan idinku baaqaynaa buu yiri inaad meesha ajaanib soo dejisaan oo carab u keentaan di keentaan oo cid walba keentaan oo dadka dhulka ka iibisaan oo dhulka maal gelistaan intii joogtay kolkuu ereyga leeyahay dadkii muslimiinta ahaa ee meesha joogayna laba masaajid bay ku kala tukanayaan oo maalintii jimciga ka horeysana masjid quray ku tukadeen maalintii sida leeyahayna laba masjid bay ku kala tukanayaan waxa ku cad dantii iyo ujeedadii u lahaa ee lagu soo ansixiyay inuu halka ka cadahay laakiin waxaan leeyahay labada beelood ay haysata ee Saylac waan leeyahay iyo waan liihida isku haya wareer waa loo yahay xigmadiisii oo isagu ma foga ciise war buuga xeer ciise ee loo qoonsaday ayuu meesha xafladeeda ku dhigaya laakiin herabtigay haddii la soo adeegsadayna war waxaan leenahay war ninkaasi waxba kama helaysa waxba kuma hayo waa kan ogeyn war maanta haddii ay wanaag tahay in Saylac gudaheega ay fidma ka dhacdo masiibada Saylac ka dhacda Booramana way saameyn Hargeysa way saameyn maanta yaa ugu yar waxay maraysaa 48 saaca in ka badan ayuu shacabku iyo gaadiidleydu ku go'doonsan tahay qorina lama hor joogay waa dad shacab ah bari haday ka xumaatay xabad dhacdana ka sii daran war waxaan leenahay war Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa cudurka ka gala fardaha hadii laga gubra dameer dawada lama gaadhay maxaa laga daalaya war hooy war maanta nooshihiin war ilaahay waa idin xisaabtami doonaa war dhiiga aadamaha habanaysanina oo umada dagaal ku kalifina oo umada colaad ha horseedina oo umada fidmada ha horseedina waxa leeyahay nimanka magacay dawladeed sheeganayo war xaaladiinu waxay ku sugan tahay waad aragtaan awood maanta aad umad ku hor joogsataan marihidina sanad ma gaarin dawladda cirra wato ma wada maysanayaan maleysay u socoto ma wada maysanayo maanta ayo war shacab la caburiya haday wax qabanaystana sool baa la caburiyaa oo wata nabada sool waxaan leenahay war dadka yaan la fogeyn dadka yaan dagaal lagu kalifin dadka yaan la dhibin dadka yaan fidmo loo horseedin Saylac bog ciise xeer ciise hadii lagu qabto hadii uu balaayo wastu gantaalo wato hub wato ya dawladdaadii baaba ku heersan oo waad arkaysaa adduunka sheegi lahaa adduunka soo dhacayana cirka wixii ka imanaya waa u jeedaa laakiin arlada wixii socda waa u joogtay oo ciidankaagii oo dhan baa ku meersan war waxaan leenahay yaan la siyaasadayn yaan ummadaana dareen la gelin oo la kicin waaba kiciseen oo la isma aaminayabe
aaminaad ma jira haddeed tanaasul baa u furan intayna muddada gaadhin ciise waa ku soo dhaqaaqay oo muddadiisii waa wataa heshiistiina waa wataa waxaan leeyahay hala nabadgeliyo oo dawladdu ha nabadgeliso oo walaaluhu ha isnabadgeliyaan war ilaahay fidmada ma jeclo inta haddaad qaadan weydana inta walada haddaad qaadan weydana dee waxaad kala heshiin baad leedihiin ciise waa qaran qabiil maaha waa kugu soo dhaqaaqay ballan baana ku qaaday dee maanta waxaad ku beenisaana ma yaallo hadda madaxweynaha saxday ballan baad u qaaday ma ballankii buu ka laamay maanta ma waxaad odhani ballankii aan qaaday anigoo madaxweynaha waan ka laamay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wasiirkiisaaba yidhi ayaaba ka yidhi aqaladii ka yidhi islama kulmi buu ka yidhi inuu dhan yahay iyo inuu waalan yahay dee afkii madaxweynuhu ku hadlayaa kolka ugaaska iyo gadadu maba aaminsana haddeed dadkan dad ilaahay nebigoo garanaya maahan anigu waxaan odhan lahaa insha allahu aniga oo hadalkaygu nasteexa yahay oonan xamaasadna ku hadlayn ciisanimaa dhulla iga qaatayna aan odhanayn anigu waxaan leeyahay war dadka maanta wada nool ee meel ku wada nool eed fidmadda dhex dhigaysaan waar iniguna waa ku gubanaysaan waa ku magac beelaysaan dawladnimada aa sheegayso iyagana waa u colaad waxaan leeyahay labada qole ee loo kala dhexdhexaadinayow ee sabaroon iyo ciisow war maantay kuugu dhowdahay oo abtiyow maantay kuugu dhowdahay barri maaha shalay maanta haddaad odhan doonto yaanan waxba lagu soo tuurin walaalkaa iyo abtigaa lagugu dirin hadduu abaal leeyahay waxaa la yidhi hadday reeyadub leeyihiin dabadooday ku qarin lahaayeen isaaq hadduu abaal leeyahay ciisa heli lahaa waxaan leenahay anigu waxaan leeyahay maanta hadalka halkaa baad kusoo gabagabaysay isaaq hadduu abaal leeyahay ciisa heli lahaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay ha fidmoobin oo abtiyaalladii dadkii aad la noolayd ha ka fidmoobin sayla halkaa unbay ahaanaysaa cimrigeed wixii soo marayeena isaaqna ma dhisin tabaroolna ma dhisin ciisana ma dhisin maanta midkiinna iskuma haysataan laakiin waa la idin soo dhex maray rabtigayo waa la idin dhex maray waxaan kusoo gabagabeynayaa isaaq hadduu abaal leeyahay ciisa heli lahaa caaqilkaasina uu sheegay hadalkaasi waa hadal maaragtay ilaahay malaa'ig baa halkaa joogta waxa uu ku hadlaayo caaqilkaasi waa la arkayaa dhagihii daloolow qaado hadalkaa qaado dadka dhibaatada ha laga daayo ilaahay ha laga yaabo insha allah aad baan kuu salaamaya adeero guul iyo gobonni baan kuu rajaynayaa khayr iyo caafimaad baan kuu rajaynayaa sayilcoo nabada hargeysoo nabada booraboo nabada dadkana waxaan fadhiyaa gaar ahaan inta adeera dardaaranka aan u dirayo beesha ciise waxaan leeyahay dad waxaan arkayey calanka ay somalilandu sheegadaan dab ku gubayay qaarna lagu tumanayo war waxaan leeyahay xamaasad iyo cadhaya inayna madax marin nimankaasi calankaa waxay ku qoreen laa ilaaha illa allah uma dhaqmaana way ku dhuumanayaane war laa ilaaha illa allah yaanan u gafin waxaan leenahay maradaasi waxbay noo qaban mayso laakiin laa ilaaha illa allah baa ku qoran waxaan leeyahay la iska nabadgeliyo yaanan la qaadan yaanan la gubin yaanan la fadeexaday laa ilaaha illa allah maasha allah waad malqaysiin calankaa waxba ha gubina waxba ha u dhimina laa ilaaha illa allah baa ku qoran laa ilaaha illa allah baa ku qoran وكا